sida la ogsoon yahay bulshada u dhalatay dawladda deegaanka Soomaalida ayaa waxa ay yihiin bulsho xoolo dhaqato ah sanadihii u dambeeyay xukuumadda deegaanka Soomaalida waxa ay qaadatay qorshe markaasi ay nolol degan ugu sameynayso bulshada xoolo dhaqatada ah si ay u helaan horumarada aasaasiga ah oo ay ka mid yihiin waxbarashada caafimaadka biyaha nadiifta iyo waliba beeraha qorshahaasi xukuumaddu qaadatay ee bulshada xoolo dhaqatada loogu sameynayo nolosha degan ayaa waxa loogu magac daray xoolo dhaqato beeraley si ay si wada jira xoolaha iyo bulshaduba ay ugu helaan nolol degan si haddaba barnaamijkani xukuumaddu ay qaadatay ee xoolo dhaqato beeraleyda oo u noqdo mid miro dhal ah ayaa xukuumaddu waxa ay qaadatay qorshayaal ay ugu koorgalayso xaaladda ay ku sugan yihiin bulshada xoolo dhaqato beeraleyda laga dhigay ee dib u dejinta loo sameeyay waxaana tiimam kala duwan u kala baxay gobolada ay ka socdaan barnaamijkani dib u dejinta waxaana ka mid ah gobolka Liban oo ay ka socdaan barnaamijka dib u dejinta loogu sameynayo bulshada xoolo dhaqato beeraleyda ah waxaana mas'uuliyiinta socdaalkani u koorgalida xaaladda ay ku sugan yihiin bulshada dib u dejinta loogu sameeyay gobolka Liban horkaciyay wasiirka xigeenka ahna kusimaha wasiirka xafiiska waraabka iyo horumarinta dooxooyinka ee dawladda deegaanka Soomaalida mudane Ibrahim Maxamuud Mubaarak waxaana ku weelinayay socdaalkani u koorgalida wasiirka xigeenka xafiiska ganacsiga ee gaadiidka ee dawladda deegaanka Soomaalida mudane Ibrahim Maxamed Maxamuud iyo sidoo kale wasiirka xigeenka xafiiska dakhliga ee dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdicasiis Maxamed Cumar waxaana socdaalkani u koorgalida bulshada dib u dejinta loogu sameeyay gobolka Liban oo inooga warbixiyay wasiirka xigeenka ahna kusimaha wasiirka xafiiska waraabka iyo horumarinta dooxooyinka ee dawladda deegaanka Soomaalida mudane Ibrahim Maxamuud Mubaarak sidaan wada ogsoonahay xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya shantii sano ugu dambeysay waxa qaadatay istiraatiiji ah macnaha dadkeena xoolo dhaqatada in loo bedelo xoolo dhaqato beeraley isla markaana dadka wabiga jiinkiisa gaar ahaan dadka wabiga jiinkiisa degan in wabiga jiinkiisa lagu ururiyo oo biyaheena khayraadka deegaanka looga faa'iideeyo annaga socdaalka iyagu guud ahaan wuxuu ahaa barnaamijkan dejinta in laga midho dhaliyo oo dhammaanba loo maganaansa si loogu talagalay loo soo hubiyo lasoo xaqiijiyo baahida dadka la soo ogaado tan macnaha barnaamijkan baryahan ugu dambeeya xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya maadaama ay ku mashquulsanayd oo hadafyada koobaad ka dhigatay barnaamijka si looga madhalin lahaa waxay xukuumadda iyo xisbiga talada dalka hayaaba ay qaateen in dhammaanba goboladan kormeer loo baxo oo la soo xaqiijiyo xaaladda ay ku sugan yihiin dadku lagana soo midho dhaliyo xaaladda guud ee ka jirta gobolada iyo degmooyinka lana soo ogaado baahida shacabka ee taale ee dhabta ah lana dhammaystiro dhammaanba qorshayaashii 5 sano loogu talagalay 2003 ilaa 2007 gaar ahaana la gabagabeeyay qorshihii sanadka lagu gabagabeeyay rubucan si aan dib loogu soo laamin dhinaca kale gudoomiyaha maamulka degmada Hudeed oo ka tirsan gobolka Liban mudane Axmed Ibrahim Xuseen ayaa isaguna waxa uu tilmaamay in qorshayaashii dib u dejinta u yaalay degmada Hudeed dhawaan la soo gabagabeyn doono waxaa jirtay marka qorshe aanu lahayn sanadkan inaanu dejino 2007 oo dhanaa marka 300 oo qoys 300 oo qoys hadda waxaanu dejinay oo la xaqiijiyay 226 qoys baa la xaqiijiyay ayadoo marka ay ka dhiman tahay 74 qoys 74 qoysna waxaan rajaynaynaa in labadan isbuuc ee soo socota aanu marka iyadana ku soo gabagabeeyna haduu la yiraahdo mid kamida bulshada dib u dejinta loo sameeyay ayaa waxa uu cadeeyay in ay aad uga faa'iideysteen barnaamijkani dib u dejinta barnaamijkani nolosha degan loogu sameynayo bulshada u dhalatay dawladda deegaanka Soomaalida ee loogu abuurayo inay helaan horumarada aasaasiga ah sida waxbarashada caafimaadka biyaha nadiifta iyo beeraha ayaa xukuumadda mas'uuliyiinta ugu sareysa waxa ay qorshe u qaateen kuna go'aan qaateen in hoos loogu dhaadhaco si loo soo xog ogaado dadkani dejinta loo sameeyay sida mas'uuliyiinta idin muuqanaysa wasiirka ku xigeenada iyo agaasimayaasha isugu jira ay hawshan ugu jiraan maxamed xasan xaashi telefishinka caalamiga ESTV tuulada Diraadiima oo ka tirsan degmada Hudeed